Buhatia waxaynu ku guda jiraan howlgab lagu soo saarayo virus loo yaqaano flake snowflake iyagoo weliba markani dabagal ku haya urur tiknoolajiyad oo la magac baxay aadana kooxdu markii gudaha dhismaha ay soo galeen waxay bilaabeen inay bam ay ku furaan iyagoo askartii kale ay bilaabeen inay mid u ugaarsadaan ciidamada meesha joogaya wakiiladu gacanta ay adeegsanayeen halka asxaabta kalen ay bilaabeen inay goobta oo dhami qarax ku xiraan haatiya markiiba sanduuqa ay bilowday inay markaasi ka soo saarto viruska waqtigaasi waxaa goobta yimaaday wakiil hore ciidamada uga tirsana oo lagu magacaabo Brighton kooxdu qoryahooda ayay ku fiiqeen markiiba Brighton dhaqdhaqaaq degdeg ayuu la yimaado oo hal ilbirqsi gudahooda ku wada dilaya haatiya ayaa habad ku furtay balse habada gacanta ayuu iskaga dhigay aad ayay uga argagaxday albaabka ayayna xiratay halka isageena qofiska albaabka uu rab inuu si xun kusoo jabiyo markiiba baabuurka ayaa dhaqaajisay Brighton waxa uu isku dayay inuu dhowr habadood ku furo tani oo keentay inay shil wayanaydaasi qaybta dambe ee baabuurka ay u orado ay bilowd inay markaasi viruska ay howlgeliso gudaha magaalada Los Angeles waxaan aragnay ajartun ugu magacaabo hooba waxa uu soo galay baar ay leeyihiin koox burcada waxa uuna bilaab inuu kooxda oo dhami la dagaalamo markii dambe hogaamiyey kooxda uu qabtay waxa uuna wax ka weydiinayay viruska daason balse ninkaas waxa uu sheegay inuusan waxba ka garanayn isla magaalada London gudaheeda waxaan aragnaa wakiil kale oo lagu magacaabo shu waxa uuna bilaab inuu xaflad qurux badan ka qayb galo qaybta VIP-da raggii burcada ahayd ayuu kula kulmay oo weysna bilaab inuu dhammaantooda si adag u garaaco ilaa markii dambe hogaamiyey uu qabtay xarig ayuuna ka xiray waxauna sidoo kale isagu wax ka weydiinaya arrimaha viruska ninkaas sidoo kale waxba kama uusan garanayn sida ayuu meesha uga laalaadiyay hoobsi waxa uu bilaab inuu markaasi la qadeeyo gabadhiisa saama iyadu waxay u sheegtay inaysan wax badan ka garanayn qaraabadeeda markiiba waxaa sheekadooda soo kala dhex galay wakiil ka socda ciidamada CIA kaas oo sidoo kale u sheegay inay dabagal ku hayaan isla viruska snowflake ciidamada CIA waxay ogayeen in hadda viruskaasi ay gacanta ku dhigtay haatiya sidoo kale saynisyahankii viruskani sameeyay ayaa sidoo kale isna la la'yahay wakiilkaasi waxa uu ogyahay iraad waxa ugu fiican adduunka inuu isagu yahay oo uu ka dalbad inuu hadda heetiya soo qabto hana loo sheegay inuu la shaqayn doono ajenti kale oo jooga London xabsiga dhexdiisa shu ayaa soo booqday hooyad oo hore u ahaan jirtay gabar dambiile waxayna u sheegtay gabadheedii haati ay muddo ka maqan tahay isna waxa uu ku yiri aniga ayaa ku keenaya gabadhaada show ayaan aragnaa dhisma ayuu ka soo baxay sarkaal CIA ka tirsan ayaa tusinaya sawirka haatiya waxa uuna u sheegay in CIA ay gabadhan dabagal ku hayaan maadaama ay virus khatar gacanta ku hayso showna waxa uu caawinaya si uu hadda u difaaci lahaa walaashiisa waa uuna aqbalay inuu hadda iyaga la shaqeeyo haatiya ayaan aragnaa saraakiisha ka sareysa ayaa waxay ka codsanayaan inay iska dhiibto viruska dabadeed haatiya waxay furtay qol sir waxayna bilowday inay difaac badan oo dambinaha ay sameyso xafiiska showyo hoobis waa ay nahayn markay ogaadeen inay labadooda wada shaqaynayaan waayo labadooda hore ayay u kulmeen mana hadid heshiisa tani oo keent inuu goobta muran ka dhasho hoobsi ayaa bilab inuu kursi daaqada ku tuuro waxayna markaasi ku heshiiyeen dhibba si gooniyaha u raadiyo waa keenii soo horheela gabadhaasi hoobsi ayaa eegay sawirada amniga iyadoo weliba dabagal lagu sameynaya wadooyinka aan lahayn kaamiradaha waxauna kusoo gabagabay in haati ay beelahaasi ku nuumanayso guriga haatiya show ayaa bilaab inuu hadda gudaha u soo galo dabinka ayuu arkay oo uu ka feejignaaday halkaasi kombyuutarkeedii ayuu ku arkay waqtigaasi wakiilo kale ayaa gadaal ka soo muuqday si dhaqsiyaal ayuu xabad ugu dhuftay kuwa kale ayaa rab inay gudaha soo galaan iyagoo aan bamka ogeen markiiba isaga ayaa bamka gacanta ku dhigay oo qaraxa joojiyay dhanka kale haatiya meel hotel ayay soo gashay bacda garaashka ayayna hadaya hadda labiskeedii oo dham ayay badashay markii ay meesha ka soo baxdayna hoobsi ayaa hor istaagay oo ka codsanay inay isdhiibto haatiya waa ay diiday waxayna markaasi bilowday inay la dagaalanto balse hoobsi maaha nin aad u fudud iyadoo dhowr mar ayay isku days inay la dagaalanto isna si fudud ayuu hal gacan ugu qabtay maalinimadii xigtay Brighton ayaa waxa uu bilaab inuu aado xarunta aada si markaasi isaga loo asboonaysiiyo heerka awoodiisi ayaa la xoojiyey isagoo weliba xanuun aad u badan dareemaya saldhigga CIA hadda hoobsi waxa uu gacanta ku dhigay haatiya wadahadalkooda waxaa kala gooyay markii ay soo wacday gabadhiisi yar ee sab wakiil kale ayuu uga tegay si uu gabadha dibadda ula hadlo
haati arka ayay ka faa'iidaysatay oo ay bilowday inay katiinad iska furto markiiba ragga ayay bilowday inay la dagaalanto hobsi ayaa gudaha kusoo laabtay qori ayayna ku qabatay show ayaa soo dhex galay oo haati walaashiisii ku amray inay hadda dagaalka ay joojiso ragga dhexdooda ayaa hadda waxay bilaabeen inay labadood iskhilaafaan iyana waxay u sheegtay in fayraska ay ku hayso kaabsal yar oo kaga jira gacanta si lama filaana daaqada qarax ayaa ka dhacay hadda Brigson yaragiis ayaa soo galaya meesha rasaas ayay ku fureen tani oo keentay in hadda Brigson uu la baxo haatiya iyagoo qalabkaan ayay isticmaalayeen tani oo u sahlaysa inay ku ordaan isla dhinaca dhismaha show iyo hobisna si degdeg ay oo la dagaalameen ilaa hobis uu bilaab inuu xarigu ku boodo halka showna uu isagu wiishka u raacay si uu qaybta hoose uu si nabad ugu tago oodis waxaa ku dagaalamaya si uu haati u badbaadiyo ilaa markii dambe show uu si nabad dhulka yimaada ragga kale ayuuna bilaab inuu markaasi rasaas ku furo labadii qofna dhulka ayay kusoo dhacaan hobsi oo rab inuu feero Brigson si degdeg ayuu iskaga difaacaya show uu nahay ninkan awoodiisa waxaan ogaanaynaa inay horey u ahaan jireen dad asxaab laakiin Brigson uu markaasi ka tagay wakaalada nigaarka oo ku biiray kooxda Adiana show ayaa sidoo kale weerar soo qaaday isna si fudud ayuuna ku dilaya hobsi ayaa bab gacmeed haday oo baabuurka Brigson hoostiisii ku tuuray tani oo keentay in hadda Brigson oo xitaa iska difaaco baabuurkaasi haatiyana raggii kale ayay iska dhaceysay markiiba baabuur qarsoodi ayayna galaan Brigson yaragiisan waxay bilaabeen inay markaa mootooyin ku baahsadaan in badan mootooyinka way iska difaaceen marka laga reebo midda Brigson show ayaa bilaab inuu Brigson u khiyaameeyo si hawli ayuu dhinaca baabuurka xamuulka ugu socday laakiin Brigson si dhaqsiyal ayuu uga falceliyay laakiinse wiilsada dhammaan shabakadaha wararka isagoo bilaab inay hadda macluumaad been abuur ay sameeyeen in iyaga hadda laga dhigay dad dambiilayaal qaran dhoox argagixisa ayaa lagu tilmaamay lacag ayaana madaxooda la duldhigaya hiitiya waxay u sheegtay saynisyahankii fayraskani hatiraacay waa inaynu dabagal ku sameynaa sawirkiisi ayaa la soo helay wadad ayaa lagu qabtay waa doctor lagu magacaabo Andrea isma qadiima ayaa la keenay Andrea waxaa laga dalbaday inuu hadda soo saaro fayraska u sheegay haddii inuu fayraskaasi soo saarno 48 saac gudahood ayuu ku milmi doonaa hawada waxaa jira fudud oo markaa lagu soo saari karo waa mashiin ay iska leedahay xarunta ADT ee yaala Ukraine saddexdooda waxay aadeen goobta uu u degan yahay markiiba isaga aqoonsiyo baasboor ay u diyaariyay dadka diyaaradaha markay yimaadeen show iyo hooti oo loo ogolaad inay gudaha ay galaan laakiin hobsi ayaa la xiray waxaa soo baxday in isaga uu sameeyay magac been abuur oo uu ka dhigo qof dambiil mar dambe intaysan diyaarada kicin hobsi waxa uu maamulay inuu hadda soo fuulo intii lagu geli jiray duulimaadka show iyo hobsi waxay bilaabeen inay mar kala dagaalamaan si kastaba haatee Brigson Andrea ayuu gacanta ku dhigay xarunta ayuu geeyay si uu markaa isagu cabsi geliyo Andrea waa uu diiday inuu hadda ninkani la shaqeeyo Brigson hadda bariga dabka ayuu soo qaatay si uu markaasi maskaxdiis u bedelo kooxda Moscow ee Ruuskii ayay yimaadeen halkaas waxay kula kulmeen gabar lagu magacaabo Margita kadib Margita waxay tusinaysaa xarunta ay degan tahay kooxda Adiana markaas saddexdoodan u hub khatar ayay siinaysa oo loogu talagalay howlgalka Margita laakiinse hiitii ayaa duubatay waxayna maxbuus ahaan ugu dhibtay Brigton dibhanimada hegtay show iyo hobsina waxay yimaadeen isla xaruntaasi markii gudaha xaruntaas ay kusoo degeen ilaalo badan ayaa meesha jooga halkaasi Andrea ayaa bilaab inuu gabadhu ku diyaariyo isla mashiinkaasi hobsi showna waxay meesha ku rakibeen qaar ka mid walha qaraxa waxayna qaadanaysaa 45 daqiiqo albaabo kala duwan ayay soo mareen markiiba qolyaha waardiyaasha ayay la kulmeen halkii dagaal aad u culus ayaa meesha ka dhashay ilaa mar dambe labadood ay qol sir soo galeen markiiba iyaga waa la qabtay barka dhexdiisa hiitiya gacmaha way ka xidheed balse lugaha iyo harka ahayd oo ay bilood inay waardiyaasha la dagaalanto kiiba katiinada gacanteeda ayay iska furtay isla saynisyahankii Andrea ayay meesha ka badbaadisay hoob iyo showna iyaga katiinada ayaa lagu xiray Brigson ayaana bilaabay inuu ciqaabo niyo keentay inay labadooda si saa'id ay u qeyliyaan Brigson waxaa labadooda ka dalbanay inay kooxda ku soo biiraan laakiin iyagu waa ay diideen haati Andrea rab inay baxsadaan qayladood ayay maqleen waxayna go'aan ku gaareen inay badbaadiyaan hobsi waxa uu arkay haati oo kooxda kusoo dhexdhoomanaysa waxauna markaa isagu sheegay inuu haysayn inuu tiimka Andrea uu kusoo biiro
haatiya ayaa qoriga Brigson ku qabatay tiri oo waardiyaasha ku kaliftay inay dhammaantooda hubka dhigaana. Adriya ayaa qoriga onolka soo kaftay oo bilaab inuu silsiladahooda ku furo. Sidoo kale meesha oo dhim ayuu hol ayay tiri markaa labadoodii fursad u siisay inay meesha ku xoroobaan. Bilishii haatiya dagaalka ayuu ku biirin oo ay ilaalada la dagaalameen. Brigsonna waxa uu meesha ku jiray saynisyahankii Adriya. Hoobyashood markiiba baabuur culus ayay fuuleen. Haatiyana baabuurka ayay kasoo dabafuushaya ilaa mar dambe hub uu baabuurka ka booday si uu qaybta dambe uga ilaaliyo. Markiiba Brigson iyo ciidamadiisu waxay bilaabeen inay bursadaan labada walaalaha halkashowna uu bilaab inuu baabuur weyn oo xamuul la soo baxo. ilaaladii oo ku dhow marka ay isla qabtaan waxa uu bilaab inuu meel aad u sareys u fuulo. sidoo kale diyaarad ayaa iyaga weeraraysay. Hoobsina maadaama baabuur aad u culus uu watay dhammaan iridada xaruntani ayuu burburiyay. Hoobsi oo markaasi sii wado inuu baabuurta cadowga oo dham uu baabi'iyo waxa uu markaas u gacan haatiya sidii ay haatiya baabuurka ku soo kartay waxayna bilaabeen inay meesha ka baxsadaan. dhammaan dhismaha oo dhami qarax aad u culus ayaa ka dhashay balse Brigson isaga weli kama hareen. hadda labadoodii waxay bilaabeen inay ninkan la dagaalamaan. ninkan labadooda waa uu ka awood badan yahay ilaa ay arkeen munaarad oo hadda soo dhacaysa. si dhaqsiyaal ayay qaybta kale uga ordeen sidii ayay Brigson mar kale uga badbaadeen. daqiiqada kadib saddexdooda waxay soo gaareen meel ammaan laakiinse hadda mashiinkoodii ayaa humaaday. haatiya waxay doorbid in hadda iyada si caadi loo dilo si ay markaasi fayraska jidhka uga saaraan. balse arrinkaasi walaalkeediisha uma uusan ogolan in falkaasi lagu dhaqaaqo. Hoobs ayaa markaasi ku marti qaaday inay aadaan isla wadankiisii Samoa. Hoobsi markuu guriga yimaaday walaalkiisii Jones oo u careysan oo bilaab inuu feero. walaalihii ku dhow inay isdagaalaan. John hooyada ayaa canaantay. saddexdooda waa la soo dhaweeyay. Jonesna waxa uu ka dalbad inuu markaasi mashiinka u hagaajiyo waa uuna ka ogolaaday. dabadeedna dhinaca dukaan ay aadeen. halkani waxay ku arkeen hubka qadiimiga Jones waxa uu bilaab inuu markaa mashiinka hagaajiyo. dadka rayidka oo dham waxay bilaabeen inay dabin aagoo dhami ka sameeyaan. Kiitiana waxay bilowday inay markaasi program ay ka iso tani oo markaasi hubka digitalka casriga oo dhami lagu dami karo. waxayna u sheegtay in hadda leh daqiiqo oo kor ay hartay inaysan hubka oo dhami aysan shaqeyn. Kiitia iyo Shu hadda waxaan ogaaneynaa in dhexdoodii u jecel dhex maraya. ugu dambeyntii Jones waxaa ku guuleystay inuu markaasi mashiinka u hagaajiyo. markiiba kooxdu waxay maqleen in hadda lasoo weeraray. Hoobsi walaalkiisa ayuu bilaab inuu raaligelin ka bixiyo. dadkii oo dhan waxay u aanbabixeen inay dagaalamaan. Show iyo walaashiisii Hiidiyan hadda waa ay midoobeen iyagoo weliba go-aan ku gaaray inay hooyadood u wada tagaan. kooxda Brigson waxay ku hareereysan yihiin dhismaha iyagoo hadda wata gaadiid iyo hub aad u culus. laakiinse markii mashiinka ayaa shaqeeyay dhammaan hubkoodii oo dhan waa uu shaqeyn waayay. haddii hoobsi wadxiib ka raxayay adeegsadeen dhammaan baabuurtii oo dhami ayaa sidii meesha loogu burburiyay. Show ayaa markaasi baabuur holaca la soo baxay iyagii oo dhami meel goobaabin ayaa lagu xareeyay. dadkiina hub dhaqamoodka ayay isticmaaleen. idoo keentay markaas ciidamadan in si adag loo dilo. ilaa mar dambe haatiya rag badan ayaa gacanta ku dhigay balse walaalkeedii Show ayaa yimaadaya. sidoo kale ciidamadu waxay la yimaadeen diyaarad helicopter haatiya ayaana gacanta lagu dhigay sida ayana diyaaradu kala kareen. balse Hoobsi markiiba baabuur meesha yaala ayuu soo kabsaday oo uu bilaab inuu silsilad ku xiro isla duulimaadkaasi isagoo isku dayay inaysan hadda diyaaradani ka baxsan. diyaaradda mashiin aad u culus ayaa saarna. sidoo kale asxaabtiisa kale oo dhami ayaa bilaab inay caawiyaan. isla baabuurkii afar baabuur kale oo culus ayaa lagu xiray si aysan diyaaraddu meesha uga baxsan. balse mar dambe kooxda hubkoodii ayaa shaqeeyay maadaama ay soo fogaadeen. tani oo keentay in iyaga rasaas lagu furo. qayb ka mida baabuurtii ayaa hadda dhaawac soo gaaray. laakiinse Hoobsi ma uusan isdhiibin. intii karaamkiisa waxa uu raba inaysan duulimaadkani ka baxsan. haatiya ayaa sidoo kale bilowday inay waardiyayaasha la dagaalanto. diyaaradda gudaheed ayaa dhaawac soo gaaraya. diyaaraddu qaybta godka hoose ayay ku dhacday. xitaa baabuurta ayaa godka hoose kula dhacaya. Brigson weli waa uu nool yahay. mashiinkuna weli waa uu shaqaynayaa. Hoobsi iyo Show gudaha ayay soo galeen oo ay bilaab inay la dagaalamaan balse markiin awoodda gacanta ee Brigson ayaa u shaqaysaya. labadooda iskama ay dhici karaan ninkani maadaama uu ka awood badan yahay. markaas waxay garwaaqsadeen in hadda hal gacan uu awood ka leeyahay. sababta adilgeed waa inay khiyaabaan. gacanta markuu ku dagaalamayo dhinaca kale ayay ka weerareen. mashiinka ayaa sidoo kale hadda isdhamaystira. tani oo la mid in hadda gabadha fayraska jidhkeedii laga saaraya. ugu dambeyntii Brigson waa la qaraacay. kori ayaana lagu qabtay. dhinaca dadka deegaanku waa ay guulaysay. sidoo kale hub iyo baabuur ayaa hadda heleen oo ay isku difaacaan marka kale.
Eden waa uu sidheebay isla mar ahaanta buurta ayay ka tuureen oo ay badda ku tuureen. Madaxda ayay fariin u soo direen iyagoo weli u sheegay in hadda howlgalka ay dhammaystireen. Labadii walaalo hiitiyeesho markii ugu dambeysay hooyadoodii ayay soo booqdeen si ay markan uga caawiyaan baxsashada. Halkan ayay muuqaalku dhamaaday.